maalin baa aroos la igu yeedhay waa wadanada gaalada anigoo wadan kamida jooga markaas aan ka qayb galo meherku waa imis waa 20 kunba 20 kun aha yarkii baan markaa u dhawaado waxaan ku iri adeer lacagta inta lag ma iska bixin karaysaa markaasuu yiri ma shaqado ma ku dhameysanayaa buu yiri oo socodsiinaya mashruucan wato ma ku socodsiinaya buu yiri khiyaano weeyaan markaas sax maaha gabadhana waxa laga dhaadhiciyay kulli ninkan uu ka tagi doonaayo lacagta ka reebo isna waxa uu leeyahay lacagta inta lag ma hayo laakiin mashruuca ma ku dhameysanayaa oo khalaas aroos baaroska uu meherkiisa uu jaban yahay buu nabigu yiri ayuu ka kala ka baraka badan yahay marka xumaanta badanaysa waxaan kula dagaalamaynaa waa maxay waa guurka inaan ka dhigno fudayd guurka inaan soo raacno wadadiisii marka horeba qofka dhalinyaradu inuu noqdo qof ilaalshan oo Ilaahay ka baqaya oo indhihiisa dhagihiisa ila nabiga waa ka yiri gacanta way zinaysataa lugta way zinaysataa dhagta way zinaysataa isha way zinaysataa carabku uu zinaystaa zinada carabku waa maxay waa haasawaha isha zinadeedu waa maxay waa daymashada buu nabigu yiri dhagta zinadeedu waa maxay waa gabadha hadalka maqalkeeda gacanta zinadeedu waa taabashada lugta zinadeedu waa socodka waxa soo dhawaa zina waa dawaaci zina waa waxyaabo zinada keenaya haddaad aragto umma macsiideedu ay badan tahayna ummadaasi way dabar go'aysaa ogaada ummad jiraysa ma way dumaysaa ummadaasi macaasidu ummadaha way dumisaa halka taacada iyo alla ka cabsiguna oo ummadaha dhiso weeyaan walaalayaal saadarteed waxaan inuu la dardaarmayaa ilaahay han ka cabsano xilli adag baan ku jirnaaye han fudaydino nabigeenu alayhi salaatu wasalaam waa kiilaha إذا أتاكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه بنبي قولي هذا إني ما دو شخصي دينتي سطبيعتي سأتكرر ليتي نقوري أبو نبي قولي هذا دو قوري ويدان أرلد فساد فتنة باكر عدو تبو رسولك يري أنس بن عمار الأصمعي أيا أبيه بأو ياري مركز كيد وريا قلبتنا الأروس تهي ما أكتهي بولي ما يا أبا ما أجيبو كيدي hor gabadhii waa lagu soo helo dadkii baan la balnansanahay soo meedo oo dharka iska soo bedel buu ka yiri waa inaan ajiiba bal sida aabihii ugu kalsoonaa yarkaasi haasawo ma yaqaanaan iyaku ma yaqaanaan laana mujtamac tarbiyadeysan bay ahayn waa salafkii weeyaan marxaba buu dharkii buu iska soo bedelay meeshii buu yimiday gabadhii waa lagu alloo meheriyay markiiba markaas la yiri aroosadii qolka bay kugu jirtaa waaba la soo diyaariyay dawrada ku hooyay reerkaagii baa lagu dhibay bacda al-ishaaygi markaas uu galay kolku uu galay waxa kaga soo baxday aqalkii inay yaro gaaban oo kuusan oo isaga aanan ajabin isaguna nin dheer oo qurux badan oo cad wallaanka lagbuha markaas assalaamu alaykum bada wa alaykum assalaam markaas uu arkay iyadii uu murugooday markaa uu naxay markay aragtay isagii markiiba iyada way u cajab galiyay ninkan dhalinyarada ee quruxda badan la geedka la eega cad laakiin isagii ma cajabin markaa bay ku tiri hamnixin hana murugoon bay ku tiri laga yaaba khayr ilaahay inuu ka soo dhaxmariyay wuxuu yiri markaa wallahi hooyadaa ya abaha gabadhan waxay kuugu dooreen kulli waa khayr ku ogyihiin iyaduna waa gabadha muuminada hadalka wanaagsan uu ka soo baxay iska barakayso ilmihi uu horeysay gabadha ku curatay ma taqaana cid uu noqday imaam Malik ibn Anas buu noqday عالم أفرت مذهب مقاشين إمامكين الشافعي رحمه الله شيخي سيبو نقضي يركي ريركاسي أي كل عرتين هبينكاس مرقى الدين ريرها لقول دسي الله كعبس لقول دسو أولاد بركة يسمى هالكا كسو بحدون سهل